waxaad ka hadashay inaad nabadgelyadii kilka sanaad iyo wixii ka dhacay maamulaha dowlad deegaanka Soomaaliya maxay Ethiopia waxa uu sheegay laba ciidan isku dirirtay dad la xasuuqay aan jirin wax dhibaato ka dhacay idinku xukuumad ahaan maxaad u aragtaan dadka ma in la xasuuqay oo la laayay oo ciidanka Ethiopia laayay mise waxaad u aragtaan in aan waxba ka dhicin فكلام دكتي الله شيطان يعوقاش ما حسوق العيسى يعني تسا ku samraan u dul qaataan hadalada uu ka soo yeeray maamul gobolka Soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم وحل الفدمة النائمة نعل الله من أيقظها في النذوي هرجاء إلهها نعذر عيدي توس وحوي أنه ما نعرضي هو وحبها الشيغاننا ما نعرضي هو حتى قال waxaan u sheegnay nabadda ka dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya inay tahay nabad dhaqaale badan iyo ifur badan iyo hawl badan la geliyay oo qaali inuu joogta in nabadda xumo way imanayaan adduunyadu intay jirto shalana way dhacday daraadna way dhacday berina way dhici doontaa laakiin in aqal lagu xaliyo ee aan cunfi iyo dhibaato intii ka daran ka hor aan lagu xalin gardhigasho iyo muxuu ahaayay wada hadal lagu xaliyo oo sokeeynimo lagu xaliyo baanu iyaguna way nala qaateen annaguna waan u soo jeedina way noola yimaadeen waxaanu aragnaana sida kaliya waayo dadka la tagay ma oo umad meesha ku wada nool waa deegaan nina deegaankiisa ka guurimayo inay nabad ku wada noolaadaan waarta wixii dhacayna la iska dowmariyo ayaan ku tahay ay sidaadu aragtay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha maamulka kilka sanaad idinku ma xasuuq baad aragtaan mise laba ciidan isku dishay dowladda xukuumadda Soomaaliya annagu waxaanu ognahay in muxuu ahaayay dhibaato dhacday dowladda kilka iyo federaalka bana waanu kala hadlaynaa marka haddana raaci karto raac markaas aan ku hadlaynaa hadda leeyahay su'aasha kale ku weydiinaysa saacada واحد وزير كامل تضبط كوري ولي أيها لقى في طوبة معمول خحيستين دقائق هو الشالي معمول كدور دقائق إثيوبيا وحد دعوة تلفزيون هون قبل تيفي قرية كيس أصوات الله وحرية قريبة قبل التلفزيون قريب أفريقيا وحقوش يعني إنه التلفزيون خاصه كي يالو دون أن نبضه هين خلاص كتشرو تعودي سنة كلا هذه دوران يخقبان دولة فدرال كصوماليا إلى هذا حكومة الصومال كما هذا وريه ودني تلفزيون حرنتو يسوى هرجيسا maxay tahay sababta uga hadlooyay arrintaas haddaan ku raado koona karmay been baad sheegto odayba tahay laakiin waanu ka hadalay waanu kala xiriirnay arrintaasuna si dhaqsaabay u dhamaanaysa hadii alla yiraahdo annaguna waxaan nahay dawladuna si gaar ah bay uga wada hadlaan ama khaladkeena waanu yeelano ama iyagu hay yeesheen waxay ku dhamaanaysaa si degdeg ah hadii alla yiraahdo arrintaana waanu ka wada xiriirnay waanu ka wada noo socoto wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Saad maanta waa uu daarintaasi wuxuu wax xiriir ah kala sameeyay ma jirto marka meedinka gaar ahaan ana kala sameeyay ana nabadgelyada xisaaban balad rigisaad ana nabadgelyada xisaaban quraabad kala hadashan day warbaahinad soo bandhigtay ka hadashay ma jiro mise hoosal kala hadashay ma habraha ma bandhigna waxaan dawladda kula hadlaynaa si gaar ah baan uga hadlay ana nabadgelyada xisaaban ana kala hadlay annaga la hadlay rag kale oo wasiirada la hadlay meel wanaagsan bay noo maraysaa muxuu in hawsha si degdeg ah loo soo daayo hadii alla yiraahdo marka aad ugu soo saacad الوسيله عدان هذا ودبيه ka daayo حاجات كلها هذا الشيء مين لو مش ساعه سؤال ما ويدين ساعه دقيقه ما ويدين Soomaaliya marka laga hadlayo waa ka hadashaa ma xalaq saada xalaq soo لا marka Soomaaliya laga hadlayo Soomaaliya marka wax dadkeeda wadaniga aad dib u daawashada ka hadlaysaa si adag baad uga hadashaa Soomaaliya ilaa hadda ma qarshoodaad kula hadasheen dawlad deegaanka Itoobiya qoraal baad u dirteen misteenta warbaahin shirka soo degtay bad si cad u cadeysay noqdo ka taageertii Soomaaliya waxa weeyaan horta waa inay noo kala socdaan dawladuhu Soomaaliya waxa weeyaan dawlad Soomaaliyeed oo aynu lixdankii isku darsanay oo ina dulmiday oo aynu ka goosanay oo ilaa imika ina sheeganaysa
marka cid ay inoola mid yihiin haba yaraatee ninka xorriyadeenna iyo qarannimadeenna iyo dowladnimadeennana waxba kama jiraan ninkaasu wuu iiga duwan yahay dadka ummadaha kale hadday Itoobiya yihiin iyo hadday Djibouti wax naga dhaxeeyo ixtiraam dowladnimo anoo wasiir baan tagaa waa la soo dhaweeyaa baabuurka madow baa lay keenaa marti baa lay keenaa xamarna de waad ogtay marka adeer waxa weeye ka dadnimadaada sheegay in ku kala duwanaaday ka uu ka dhaxeeyo isqadarinta wax way dhacayaan maalmo baxid wax way ka dhacaan waan maxalina idima soo gaadhaan tan waan maxalinayna laakiin in laga dhaxshido tolaay iyo balaayo labada dal adeer waxaan nabad ahayn oo aan ku wadayna habeertii ma jirto iyaguna way nala ogoyeen nabad lagu wada noolaado inana wayna golahay marka waxaynu ka saarana meesha waxa la wixii cunfiya waanu dhameeyna dhamaade waan ka qosleena hadda la daawo keebel wasiir saaka ka jawaabaya maya kaysi su'aal bad weydiis waxa weeye horta ana la nisbiga oo ah ما دميو صحافة أنا مالتها دعضي مالتها يوسف دعضي تقول كوضة صعنايو حق أنا ولا لحظة صمات قرن دولة إثيوبيا هذا سفير بلاد هو سومالي لان شوفه سجن ولا لحظة واحد استوى دولة دي يودلك خلايا كوضة هذلا ندى صحافة الله ما بردقو كيسو soo garan meesii laakiin waxa weeye waa laga wada hadlay hadaan adigu ogeyn oo hoon keebel shaqaalihiisa mulkiilaha ugu ogeyn la hadlo waan ogeysiinay farxaan xaaji cali oo dubay jooga telefoonaan kula hadallo waan u sheegnay xaaladdu meel walba si halkii marisay ilaa maalintii maxaan ku dhahday iyo qoliyaha taarkiisa jooga burcuda warku ku yar dambeeya hadda soo garan meesii marka waxa weeye ma waxaan sheegayaa ma waxa ka hadlaya yani quraan u gudbay muraadon soo taagay waan ka hadal muraayadana waan soo taagayo nin ba si kale hadalku wuxuu ku wanaagsan yahay in si qurux badan loo wada hadlo hadalada leeyahay muraadon soo taagay luqadaha inaad joojisaa qurux badan oo sidii wariye waxa wariye weyn baa tahay oo gobolka joogay wariye gobolka joogo weyn baa tahay inaad si qurux loo hadashaa fiican mulkiilahaaga aad u shaqaysaa inaad arwaan la hadal waxna waa official xidhitaankeedana kambaniyada dawladdu way kala hadashay kuwii xidhay baanu kala hadalnay soo ma garan laakiin de contractna waa leedii oo contract maxaan ku raadayay hoonkeeda la galay annaguna qaybteeda waxaanu ka hadalnay inankaas inaanu wax dambiye gelin in la soo daayo wax qarsoon ma ahayn de hawshiisina waa lagu jiraa waana laga shaqeynaya marka waxa weeye nidaam walba mar hadii la galo hawsha lagu jiro waxa weeye ha ka dhigin inaan cidi gelin ama aan laga maxaan ku raadayay aan laga hawlgelin waanu ka hawlgalay waanu ka muslimin ila la soo daayo dibadda la keenay magacaygu Khalid Kareer waxaan ka tirsanay hawlgalin istaad sida hore loo sheegay waxa weeye awalan mas'uuliyadda muwaadiniinta reer Soomaaliland marka madaxweynaha qaranka laga yimaado mas'uuliyaddeeda adaa wasiirka arrimaha gudaha leh oo ay ka hoos imanayaan anigana ku dhaw suxufi ayaa laga dhibaato qabtaadu ma waxa weeyaan alxamdulillah suxufi waxa laga aftoobtay waxa weeyaan جريدة وانتهى إلا هذا هالكاكوتين سحكوا مدهان محويا صداو أركتان إن لا أفتوتم موادر السماء الآن أولا كحثان وحنو أرغنا وحي عن دولة إثيوبيا كل كلا هذا اللي يعني كعد سنة اللي بكرة ميرو ونكسن ومريا إن شاء الله هنا ونوع من يعني هالكاكوتين تشيجا